ummadda hadday dhallinyaradu ka xumaato ay dhallinyaro weydo waa ummad dhimatay. waddankanna waxaan arkayaa jiilka soo koraya inuu usii jeedo qaad iyo in la nooca, waayo intii duqayda ahayd baa waalatay. waa waalin nin weynoo qaad cunaya, waa nin weynoo darag cabaya, weliba laysku raacsiisan yahay. dunida kale daragga dad baa cabba, laakiin waa tabaqa liidatoo la yaqaano. dee berigii hore Soomaaliya waxaa jiri jiray koox yaro la odhan jiray waa alkoolistayaal, waxay fadhiyi jireen dooxa iyo meelaha. waa tabaqa yaroo liidato dee dadka ka liito oo qofna aanu ku dayasho u qabin bay ahayd. laakiin hadday bulshaduba noqoto alkoolistayaal, bulshada inta qaadka cuntaa waa alkoolisti, ama madaxa sheegta ama shariif ha sheegta ama sheekha sheeg wuxuu doonaa sheegto. waa daragiste, waa darag rasmiya qaadku. bulshada maanta noolina ammaan baabay u qaadatay. yacni qofku inuu cuno waxa ka horraysa inuu xumo u arko. shaygu inuu xun yahay ayaa ka horraysa in mujtamacu arko. laakiin inuu noqdoba odayada maanta haddii la yidhahdo ha la shiro oo waxa la isweydiiyo, fadhi baynu u baahanay baa la leeyahay. madaxdu hadday tidhahdaa fadhay u baahantay, iyaduna ummadoo dhammi fadhay u baahantay. fadhiga la sheegaya waa in garaabo la ruugo, waa in qaad la cuno. yacni waa ummad waalan. marka nin qaad cunaya waa nin waalan, nin waxba keeni karaya maaha. da'dii yaraydna waxaad mooddaa inay hiigsanayaan da'daasi nolosha ka dhacday. war da'daasi waa drop out iyo tusaale idiin noqonin. da'daasi waa drop out rasmiya. drop outku waa dadka aan la tirsanin ee tirada ku jirin. nin drag caadi ka dhigtay inuu cunaa tiro kuma jiro. ummad uguma jiro, reer uguma jiro, qabiil uguma jiro, dawlad uguma jiro, cidnaba wax kama taro. da'dan yara soo socotaana waxaad mooddaa in indhahoodii u kaaye. dee ama aabbaa qayala ama adeeraa qayala ama wixiiba waa qayalaan. reerka wixii joogaba de way cunaan. isna wuxuu u socdaa markaa dee kama fogaanayo. waxaan idin leeyahay waxa weeyaan inaynu bedello jiilkaas baynu u baahanay. inaynu jiilkaa bedello, inaynu u diyaar garoonaa baynu u baahanay. oo ku bedello jiil wax baranayo, aqoon leh, dhaqan leh, akhlaaq leh, wakhtigiisa ka faa'iidaynaya, waalidkii ixtiraamaya, ummaddiisa ixtiraamaya, dadka wax u qabanaya. jiil iijaabiya, positive dada. jiil aan negative ahayn. jiil aanu tusaale kuwani u noqonin ee tusaale u noqdo nebi maxamed iyo saxaabadiisii. qofka bini aadamkii tusaale kama maarmo iyo cidu ku daydo. way fiicnaan lahayd tusaalahaagu waxaad arkaysa inuu noqdo. saxaabadu way inaga tusaale fiicnayd, waayo nebi maxamed bay arkayeen oo dhaqmayo, nool oo soconayo, cibaadaysanayo, hadlayo, warramayo. idan way inaga tusaale wanaagsanaayeen. laakiin insha allahu inaguna tiisiyo qoran baynu haynaa, iyo tii alla keenay oo qoran. inaynu iyada tusaalaheenna ka dhex raadino, aynan tusaale ka dhiganin intan derbiga fadhida. inaynu isku dayno ummaddan inaynu badbaadin karno. jiilka badbaadin karana waa da'yartiinaa un. da'yartiinaasi haddaa khilaaftaan waddadii kuwa hore socdeen, ummaddani mustaqbal bay leedahay. haddiise da'yartu ay raacdo ummaddan hore halkay u socoto, waddankan geedna ku hadhi maayo, neef xoolina ku hadhi maayo, dadna ku hadhi maayo, waxba qaad baa lagu cunaya.